dawladii ay ku soo dhawaada qaybaha kala duwan ee idaacadda raadiyo Baraarug iyo warbaahinta kale ee Baraarug News.net ka gelitaan qaybaha kale ee Google-ka saaxiibayaal ku soo dhawaada wararka aynu ka hayno dhulka Soomaalida iyo geeska Afrika iyo caalamkaba saaxiibayaal haylaawina ku dhufata subscribe oo si la kala lana wadaagta saaxiibadina kale xogayaha arrimaha dibadda ee dawladda Mareykanka Anthony Blinken oo booqasho ku tagay caasimadda dalka Itoobiya Addis Ababa ayaa kulan la qaatay ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Ahmed kulankan ayaa kaga wada hadleen arrimo muhiim ah oo quseeya xiriirka Mareykanka iyo Itoobiya iyo kuwa gobolka ee geeska Afrika. Blinken iyo Abiy Ahmed ayaa isla meeligay xoojinta xiriirka soo jireenka ah ee dawladaha iskaashiga dalalka Itoobiya iyo Mareykanka ee labada dhinac. Sidoo kale xogayaha arrimaha dibadda ee dawladda Mareykanka ayaa Arbacadii la kulmay ra'iisul wasaare ku-xigeenka Itoobiya ahna wasiirka arrimaha dibadda taasoo qayb ka ahayd booqasho hal maalin ah oo uu ku tagay dalkaas. xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa rajo ka muujiyay heshiiska nabadeed ee ay bishii November kala saxiixdeen dawladda federaalka ee Itoobiya iyo xogaga Tigreega. Isdhexgalka siyaasadda geeska Afrika ayaa si xawli ah ku socota isla markaana Itoobiya ayaa hadda dardar cusub gelisay saameynteeda gobolka geeska Afrika markii xukuumadda hogaamiya ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Ahmed uu ka soo faraxashay ama ay muuqatay in xiligan uu dhamaanba uu ka soo dhamaaday dagaalkii uu kula jiray xoogga Tigreega oo dagaal muddo dheer socday oo ka dhaxeeyay dawladda Abiy iyo Tigreega. xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ayaa la sheegay in kulan shira oo ay kaga arisanayeen sida ay ka yeeli doonaan gudoomiyaha aqalka golaha wakiilada Soomaaliya Cabdisaaq Khaliif ay ku yeesheen xafiiska madaxtooyada magaalada Hargeysa. isla markaana waxaa la sheegay in madaxweyne Muuse Biixi wasiirkiisa arrimaha gudaha Maxamed Kaahin iyo taliyayaasha booliska iyo taliyaha militariga Nuux Taani iyo dabagale ay kaga wada hadleen in la xidho gudoomiyaha aqalka golaha wakiilada Soomaaliya Cabdisaaq Khaliif kuwaas oo la sheegay in ay shirkaasi ay kaga wada hadleen qaabkii loo soo qaban lahaa ama loo xili lahaa. warku wuxuu intaa ku darayaa madaxweyne Muuse Biixi uu ka warhelay in gudoomiyaha aqalka golaha wakiilada uu ku sugan yahay magaalada Addis Ababa ee dalka Itoobiya oo uu tagay arrimaha dagaaladii ka dhacay gobolka magaala madaxda gobolka Sool ee Laascaanood. arrintaas oo la sheegay madaxweyne Muuse Biixi inuu aad uga xanaaqay Cabdisaaq Khaliif socdaalka uu ku tagay magaalada Addis Ababa oo dawladda Itoobiya kala hadlay arrimo la xiriira dagaalka ka dhacay magaalada Laascaanood ee dhexmaray xoogga ay hogaaminayaan garaadada beelaha dhulbahantee oo iyagu xiliga ku sugan gudaha magaalada Laascaanood iyo xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi. xogahaas ayaa tibaahay in arrintan ay keentay shirka uu madaxweyne Muuse Biixi uu xukuumaddiisu doonayso in ay xidho Cabdisaaq Khaliif ay ka warheshay in murashaxa xisbiga mucaaradka ah ee wadani Cabdiraxmaan Ciro iyo gudoomiyaha aqalka golaha wakiilada Cabdisaaq Khaliif ay safar dalka Itoobiya kaga imanayaan oo ay kaga soo degayaan socdaalkaas ay Itoobiya dalka caasimadda Somaliland ee Hargeysa. halkaas oo la sheegay in Muuse Biixi xukuumaddiisu ay doonayso in ay xidho Cabdisaaq marka uu ku soo noqdo magaalada Hargeysa. xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi ayaa la sheegay in shirka ujeedadiisu ahayd la qaado tallaabada xadhiga marka uu soo galo magaalada Hargeysa ama haddii uu ku soo noqdo caasimadda Somaliland Hargeysa gudoomiyaha aqalka golaha wakiilada. xadhigaasi saameynta uu ku keeni karo dhanka guud ahaanba xukuumadda Muuse Biixi ama saameynta ka dhalan karta haddii gudoomiyaha aqalka golaha wakiilada Cabdisaaq Khaliif la xidho. tallaabooyinka ka iman kara dhanka shacabka iyo mucaaradkaba in ujeedada kulankaas uu ku saabsanaa iyo xogo kala duwan oo aan ka helay qaar ka mid ah dadka ka agdhow xafiiska aqalka madaxtooyada oo iyagu kulankaas ka socday aqalka madaxtooyada. Muuse Biixi Cabdi iyo wasiirka arrimaha gudaha labada taliye Nuux Taani iyo dabagale oo iyagu kulankaas ka agdhawaa ayaa idaacadda raadiyo Baraarug u sheegay in guud ahaanba kulankaasi lagaga hadlay sidii tallaabada laga qaadi lahaa gudoomiyaha aqalka golaha wakiilada. mooshi ka dhan ah la geeyo aqalka golaha
wakiilada oo mudanayaasha baabulo sidii ay xilka xayuubin ugu sameyn lahaayeen gudoomiyaha aqalka golaha wakiilada Cabdirasaaq Khaliif uu ku saabsanaa ujeedada kulankaasi. xogaas ayaa tibaahay madaxweyne Muuse Biixi Cabdirasaaq Khaliif ay ka warheshay murashaxa xisbiga mucaaradka ah ee wadani Cabdiraxmaan Ciro iyo gudoomiyaha aqalka golaha wakiilada Cabdirasaaq Khaliif ay safar dalka Itoobiya kaga yimaanayaan oo ay kaga soo degayaan socdaalkaas Itoobiya ee kaga soo noqdeen Addis Ababa madaarka caasimada Somaliland ee Hargeysa. halkaas oo la sheegay in Muuse Biixi xukuumaddiisu ay doonayso inay xidho Cabdirasaaq. xukuumadda madax Muuse Biixi ayaa si hoose u wada qaabkii abaabul hoose oo ay doonayso in xilka laga qaado gudoomiyaha aqalka golaha wakiilada Cabdirasaaq Khaliif, taas oo ay doonayso inay u marto mudanayaasha aqalka golaha wakiilada. hase yeeshee waxaa arinta xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi ilaa iyo hadda saameyn weyn ku yeeshay ay tallaabadaas ay si cad u qaadi laadahay ay sabab u tahay mudanayaasha aqalka golaha wakiilada oo intooda badan mucaarad yihiin ay arrimahaasi dibadhac weyn ku keentay xukuumadda madaxweyne Muuse inuu xilligan keeno mooshi ka dhadha xilka laga qaadayo gudoomiyaha aqalka golaha wakiilada, taas oo ku cabsi qabta Muuse Biixi inuu ku guuldareysto haddii uu keeno mooshi xilka laga qaadayo Cabdirasaaq Khaliif oo lagu eedeynayo arrimaha laascaanood inuu la saftay garaadada. madaxweyne ku-xigeenka Somaliland Saylici oo waraysi siinayay telefishinka qaranka iyo telefishinka kale ee Sahan ayaa sheegay in gudoomiyaha aqalka golaha wakiilada Khaliif laga doonayo cadeynta ah eedeymo uu u jeediyay ciidamada qaranka Soomaaliland, gaar ahaan in ciidamadu ay gawaadhi iyo guryo kala baxaan dad shacab ah oo ay laayaan. madaxweyne ku-xigeenka Somaliland waxa uu sida oo kale ku eedeeyay gudoomiyaha Khaliif inuu ka talaabay xildaabkii Somaliland. sabab ahaatee ma jiro war rasmi ah oo ka soo baxay xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi inay xirayso gudoomiyaha aqalka golaha wakiilada. boqor Isbaar Buurmadow ayaa isaguna xilligan ku sugan magaalada Addis Ababa isaga oo safar kaga soo baxay caasimada dalka Soomaaliya ee Muqdisho, isla markaana arrimaha dalka Itoobiya uu boqor Ismaal Buurmadow xilligan u jooga ayaa la sheegay guud ahaanba inuu isagu hogaaminayo oo abaabulka ugu weyn uu leeyahay in xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi lagu mijaabiyo. ayaa waxaa la sheegay in dhammaan arrimahaas oo dhan uu isagu xilligan hormuud garwadeen ka yahay boqor Isbaar Buurmadow. saaxiibayaal, haylaawina ku dhufataa subscribe oo si la kala saaladana wadaagtaan saaxiibadina.